Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada Rafika Academy. Cashirkeena wuxuu ku saabsan yahay wada sheekaysi u dhexeeya askari kaynta duurjoogta ilaalinaya iyo dad usoo daawasho tageen. Dadka usoo daawasho tageen ayaa waxay ka koobayeen hooyo iyo labadeeda canug wiil iyo gabar. Hooyada ayaa hadalka bilaabaysa, waxay leedahay hujambo askari, ma nabad baa askari? Askariga ayaa u jawaabaya oo dhahaya si jambo waa nabad. Karibu katika hifadhi yetu ya wanyama, kusoo dhawaaw kenteena xanaanada xayawaanada ama duurjoogta ayuu leeyahay. Kusoo dhawaaw kenteena xanaanada duurjoogta ayuu leeyahay. Maamadii waxay leedahay asante, waad mahadsantahay ayay leedahay. Asante, waad mahadsantahay. Askariga wuxuu leeyahay naona umewaleta watoto waone wanyama, waxaan arkaa in aad u keentay caruurta si ay u daawadaan xayawaanada halkan jooga ayuu leeyahay. Asagoo caruurta lasii hadlaya ayuu leeyahay mngependa kuwaona wanyama gani, xayawaanada jeclaan lahaydeen inaad daawataan ayuu leeyahay. Asagoo caruurtii su-aal u celinaya ama weydiinaya mngependa kuwaona wanyama gani ayuu leeyahay. Fadlan haddii aad kanaalka ku cusub tahay, subscribe sar oo gambareelka furo si ay kusoo gaaraan casharo kale ee sidan oo kale ah. Fadlan ha ka iloobin subscribe-ka. Haddii aad hor u subscribe garaysan waad mahadsan. Msichana gabadhii ayaa jawaabaysa, waxay leedahay mimi ningependa kuwaona wanyama wote wa porini. Waxay leedahay mimi ningependa kuwaona wanyama wote wa porini. Aniga waxaan jeclaan lahay in aan arko duurjoogta dhammaantood, kulligood inaan arko ayaan raba ayay leedahay. Mimi ningependa kuwaona wanyama wote wa porini. Wiilkina wuxuu leeyahay mimi ningependa kuwaona simba, chui, nyati. Pia ningependa kumuona simba akiwinda. Wuxuu leeyahay aniga waxaan jeclaan lahay inaan arko libaaxa, shabeelka iyo gisida. Waxaa kaloon jeclaan lahay inaan arko libaaxa asagoo ugaarsanaya ayuu leeyahay. Waxaa kaloon jeclaan lahay libaaxa inaan arko asaga oo ugaarsanaya. Askariga wuxuu leeyahay bila shaka mtawaona wanyama wengi ayuu leeyahay. Shaki la-aan waxaad arki doontaan xayawaano badan ama duurjoog badan ayaad halkan ku arki doontaan ayuu leeyahay. Mfulana wiilkii wuxuu leeyahay nitaweza kuona simba akiwinda. Ma arki karaa libaaxa asagoo ugaarsanaya ayuu leeyahay. Ma arki karaa libaaxa asaga oo ugaarsanaya ayuu leeyahay. Askariga ayaa u jawaabaya, wuxuu leeyahay simba walio hapa kwenye hifadhi hupewa nyama, hata hivyo utachezewa video ya simba akiwinda. Wuxuu leeyahay libaaxda halkan joogaan hilib ayaa la siiyaa oo ma ugaarsadaan, laakiin waxaan ku tusi doonaa ayuu leeyahay muuqaal ah libaaxa oo ugaarsanaya. Mfulana nitafurahi sana, ninaweza kuitazama hiyo video sahihi. Nitafurahi sana, aad ayaan ugu farxi doonaa ama waan ku farxi doonaa ayuu leeyahay. Nitaweza kuitazama hiyo video sahihi. Muuqaalka asaga hata ma daawan karaa ayuu leeyahay. Askariga wuxuu leeyahay kwanza tutakuonyesha wanyama wote walio hapa kisha tutakuchezea video. Kwanza marka hore tutakuonyesha wanyama wote, waxaan ku tusi doonaa xayawaanada dhammaantood walio hapa oo joogaan halkan. Kisha intaa kadib tutakuchezea, waxaan ku tusi doonaa muuqaal. Tutakuchezea video hiyo, waxaan ku tusi doonaa muuqaal ku saabsan libaaxa oo ugaarsanaya. Macnaha su-aasha hore ayay ku xiran tahay. Gabadhii ayaa su-aalanaysa oo dhahaysa kwa nini munaweka wanyama hapa, wanyama hao hapa badala ya wao kuwa porini. Waxay leedahay maxaad xayawaanada inta uga haysaan
ee aad u sii dayan weyseen ayaga haska galaan keyntooda maxaad halkan uga haysan ayay leedahay. Askariga wuxuu leeyahay tunawaweka hapa ili kuwalinda dhidi ya majangili. Halkani waxaan ugu haynaa si aan ugu ilaalino burcad ayuu leeyahay. Umewahi kusikia kuwa majangili wanawaua wanyama? Wuxuu leeyahay ma maqashay in ay burcadka dishaan xayawaanadan. Gabadhii ayaa leh ndiyo, kwa nini majangili wanawaua wanyama? Maxay u dishaan ayay leedahay. Ragga burcadka ah maxay u dishaan xayawaanada? Sababta ay u dishaan maxaa waay ayay leedahay. Askariga wuxuu leeyahay wanawaua kwa sababu mbalimbali ayuu leeyahay. Waxay u dishaan sababo kala gedisan ama sababo kala duwan ayay u dishaan ayuu leeyahay. Je, kuna kati yenu anaweza kutaja sababu moja? Wuxuu leeyahay ma jira labadiina midkiin qof sabab ka mid ah sheegi kara ayuu leeyahay. Je, kuna kati yenu mtu anaweza kutaja sababu moja ayuu leeyahay. Gabadhii wiilkii wuxuu leeyahay nafikiri watu wanawaua ili kula nyama yao. Wuxuu leeyahay wiilkii nafikiri waxaan u malaynayaa watu wanawaua ili kula nyama yao. Sababta loo dilaya xayawaanada in ay tahay in ay doonayaan dadkaasi inay hilibkooda cunaan. Gabadhina waxay leedahay mimi nafikiri wanawaua ili waache kula wenzao kama vile simba kufanya. Waxay leedahay aniga waxay ila tahay sababta xayawaanada loo dilaya waxa loo dilaya waxay cunayaan wenzao, macnaha xayawaanada kale ee keenta la joogaan ayay cunayaan, labaaxa iyo kuwa lamidka ee xayawaanada kala cuno. Sababtaas darteed ayaa loo dilayaa ayay leedahay. Askariga wuxuu leeyahay basi mtajua mengi kuhusu hayo. Wuxuu leeyahay waxaad ogaan doontaan mengi kuhusu hayo, arrimo badan oo ku saabsan sababta loo dilaya, kwa maana utalipa. Wuxuu leeyahay asagoo hooyada la hadlaya ayuu leeyahay utalipa kiingilio katika ofisi ile kisha nitawapa mtu wa kuwaelekeza. Wuxuu leeyahay marka hore waxaad bixinaysaan lacagii halkan lagu geli lahay, lacag ayaad halka ofiiska ku bixinaysaa, kadibna waxaan kugu darayaa qof kusoo kala tusi meelahaas. Mtu wa kukuelekeza waxa waaye qofkii kusoo kala tusi lahay meel kasta ee ku raaci lahay, wax kasta ku kala tusi lahaa ayaan ku raacinayaa. Cashirkeenan halka ayuu ku egyahay. Ha ka iloobin subscribe-ka.